ma jiraan calaamado lagu garan karo inaan sixranahay, in il igu dhacday, in la ixasday, in jin i hayo. Afartaba ma jiraa waxaan ku garan karo. dabcan way jiraan, saan marka hore hormariyey, cudur kasta oo jira calaamaduu leeyahay ka hore. cudurrada caadiga ah calaamado gooni dhakhaatiirtu ay ku yaqaanaan baa jira. maanta marka waxaad i weydiisay su-aasha ah, haddaan sixranahay ma jiraa waxaan ku garan karo inaan sixranahay anoon qofna ii sheegin aan ogaan karo? dabcan haa, way jiraan. waxaynu ku soo koobaynaa 10 calaamado oo waaweyn. 10ka calaamad macnaha 10 calaamadood oo lagu garta miyaa jira mise 10kan calaamadood aa sheegi rabtida ugu waaweyn? waa kuwa ugu waaweyn. way ka badnaan karaan calaamaduhu, laakiin 10ka ugu waaweyn oo qofku 10kaasi ama mid ka mida ama 2 ka mida ama ugu yaraan 3 ka mida shakhsiyan wuxuu ogaan karaa uu inuu isku sixran arkay. yahay. hadduu isku arko 3 ama 4 ka mida calaamadahani waaweyn, wuxuu ogaanayaa qofkaasi marka inuu sixran yahay. markaan saan leenahay calaamadahaasi maahan calaamado dhakhtarka caadiga uu daweyn karo, ama maahan wax dhakhtarka caadiga uu wax ka qaban kara maaha. calaamadaha marka waxaan rabnaa si dadkana daawada ay ula socdaan inay nala dhammaystaan calaamadahan 10ka iyo waxay yihiin. calaamada koowaad haddaad iska weydo, tan labaad, tan saddexaad, tan afraad baad iska heli kartaa. tan shanaad, tan lixaad baa laga yaabaa inaad iska hesho. labada u dambaysaa laga yaaba inaad isku aragtid. marka aynu 10kan aynu ku soo koobnay oo niri waa kuwa ugu waaweyn, aynu marka isla fiirino. sixirku sidiisaba waxaynu sheegnay noocyadiisu way kala badan tahay, way kala duwan yihiin. qayb waxaan niri waa kuwa qofka la cabsiiyo ama la cunsiiyo. qayb qofkaa loo duugaa oo meel baa loogu aasaa. qayb qofkaa ku istaaga oo uu ku istaaga. qaybaha dambe oo tiknolojiyadda hadda soo hormartay oo laysku sixrayo internetka, sida sawiradaadoo la qaado, sida taleefona laguu soo diro, kuwaasi waanu iman doonaa. marka sixirada noocaasa kulligood marka laysku daro 10 calaamo ayaan kasoo dhex saarnay oo lagu garan karo. 10ka calaamo waxaa ka mida madax wareer joogto ah, oo weliba madaxa qayb ka mida qofku iska xanuunaya. haddii dhakhtar u tago, haddii daawo la siiyo, haddii la baaro, wax cudura lagu sheegi maayo, dhakhtar ku sheegi maayo. haddana madaxaasi oo weliba dhinac ah ayaa xanuunaya oo joogto ah oo muddo soconaya. waa calaamada koowaad. hadaad isku aragto marka madax wareer joogto ah ama madax xanuun joogto ah oo daawadii caadiga ahaydna ay waxba kaa qaban lahaday, dhakhtarkuna uusan waxba kugu sheegayn, waxaad ogaataa inaad iska heshay calaamad ka mida calaamadihii sixirka ayaad iska heshay. calaamada labaad waa maxay? midabka wejiga oo isbedela, ama dhaforada ha noqdo, ama wejigan kore ha noqdo, ama labada daan ha noqdo, ama labada dhafoor oo isbedela. kan sixirkan waxaa kaloo ku lamaanaan kara isha. qofka markay isha ku dhacdo ama la sixiro, labadaas calaamadaas way isku lamaanaan kartaa. dumarkaana u badan. wejiga waxaa ku dhegaya waxa la yidhaha haaro, ama midabka waa isbedelaya. daawada caadiga ahaydna ma goyn karto. waxyaabahan laisku cadeeyay waxba ma goyn karaa. haddii la marmariyo way ka baxayaan, haddana sidii bay kusoo noqonayaan. joogto ayay noqonayaan. wax joogto oo ku dhegan bay noqonayaan. qofkaas kareen iscadeysa uma baahno inuu iscilaajiyo u baahan. inaad qur-aanka ilaah isku akhriso unbaa kaa kaxayn kara. cilaajku waanu imaan doonaa, haddii loo baahdo mar baan ka sheekayn doonaa. tan saddexaad ee lagu garan karo haddii uu jiro sixru tafruqa, baa lagu gartaa sixir ninkii naagtiisa lagu kala geynayo. haddii ay shahwadii farxaano ay yaraato, oo gogasha ay yaraato, oo reerkii khilaaf joogto ah oo wuxuu salka ku hayaan la garanayn, maalin walba ay soo noqnoqoto, oo ninkii mas-uuliyaddiisii uu dhibsanayo, uu caroonayo, uu ka cararayo markii lala hadlo, gogashii shahwadeediina lagu gudanayeyna raqabadii ay yaraato, labada dhinacba ay ka yaraato, ama ninkii uu ka soo istaago ama gabadhii ay ka soo istaago. waxaa jira marka waxa la yidhaha sixru atafruqa. sixir baa loo qabtay labadaa qof lagu kala geynayo. waxayna sababi kartaa marka dambe haddaan la gaarin oo si dhaqsi aan loo gaarin, in reerkaasi uu ku burburo oo reerkii meesha uu ka baxo. waa calaamad runtii aad u badan, aadna muhiim u ah, loona baahan yahay in lagu baraarugsanaado. waa calaamada saddexaad baan niri. calaamada afraad waxaa farxaan u dhacaysa in faraha, ama kuwa lugaha ha noqdaan ama kuwa gacmaha ha noqdaane, marmar qofku ay qaboobaan, 30 daqiiqo kadib iska kululaadaan, qabow kulayl intaas ay u dhaxayso. waxaa intaas marka sii raacaysa marka ay qabowgiiyo kulaylka la imaanaya dhidid.
bay wataan, waa qaboobayaan, way kululaanayaan, haddana daqiiqad kadib waa kuleyl buu faraha noqonaya. dhididaya faraha way dhididayaan, waana qaboobayaan, wayna kululaanayaan. hadda qabow bay ahaayeen, daqiiqada kadib ama 10 daqiiqo kadib waxay noqonayaan kuleyl, dhididna wuu ka imaanaya. dhidid badan baa marka qofka ka imaanaya. waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inuu isku arko oo saynu sheegnay kaadidu inay ku badato. qofkaa markii laga baaro sokor ama sokorow ma hayo, wax kaloo hayo lama arko. wuu dhididayaa, kaadidu way badanaysaa, labada calaacalood qabow bay noqonayaan, ama 4 calaacalood marna way kululaanayaan. calaamadaha kaloo lagu garto waxaa ka mid ah calool xanuun joogta ah. qofka caloosha iska xanuunaysa, dhakhtar kasta hadduu u tago waxba lagama qaban karo. wuxuu sababayaa marka calool xanuunkaasi markuu dheeraado oo dambe in qofkii ay saxaradiisi dhiig soo raacdo. qaybtaasi marka sixirka waa sixir ma'kuul, oo qofka waxbaa la cunsiye caloosha uga jira, sixir baa caloosha uga jira. marka wuxuu sababayaa marka calool xanuun aan daawo lahayn, macnaha daawadii caadiga ahayd aan lahayn oo joogta ah in laga qabto. in sixirkaas marka dambe si u wado uu dhiig uu ka yimaado, markuu saxaroonaya uu dhiig ka yimaado. waa qayb ka mid a calaamadaha. waxaa ka mida marar badan inay dhacdo qofkii inay wax soo gujinayaan, lalabo iyo matag inay soo gujinayaan, waxna kama imaanayaan. wuxuu damcayaa inuu matago, sidii wuu cararayaa, suuligu ku cararaya, aad matagtid buu isleeyahay. kama waxay sameeyaan, kama soo imaanaya. wuxuu isleeyahay lalabaa ku haysa, la carar, waxna kama soo baxayaan. wuxuu isku dayaa inuu wixii iska faaruqiyo gudaha uga jiray, laakiin wixii ma ka soo baxayaan, waxyaabihii gudaha uga jiray kama soo baxayaan. waa calaamada 5aad oo aynu hayno. calaamada 6aad aynu iraahdee. calaamada 7aad waxaa ka mid a qofku wuxuu la nool yahay murugo, walwal iyo walaac joogta ah. waxaa ka mid ah mar walba qofka walwalsan yahay, macnaha waxaan gaaladu ay qaarkood u yaqaanaa stresska. waxaa weeye walwalka iyo ma garanaysaa walaaca, walbahaarka, cabsida joogtada ah, mugdiga uu ka boqo, qayb bay ka tahay. marka qofkaasi wuxuu ku noolaanayaa walwal ayuu ku jirayaa, wax kastuu ka baqayaa. guriga haddii looga tago wuu ka baqayaa, mugdiga wuu ka baqayaa, musqusha keligii ma aadi karo. cabsi aad u tiro badan ayaa ku jirta, oo walwalkaas joogtada baa qaybka. calaamadaha kuwa ugu muhiimsan oo dadku inta badan lagu arko waxaana ka mid ah qofku inuu wahsado, wahsi iyo cajsi. xitaa qofku heer wuxuu gaarayaa marka dambe uu ka wahsado inuu isnadiifiyo. nadaafaddii wuxuu ka istaagayaa. wahsiga wuxuu kalifayaa inuu horta wax fiican cunin. wuxuu wahsiga hadduu sii wado kalifayaa inuusan nadaafaddii uusan ku dadaalin. hadday noqon lahayd midii jirkiisa ma nadiifinayo. ismaaday laga bilaabo, qubays laga bilaabo, tahaaro laga bilaabo, ma samaynayo. dharkiisi ma nadiifinayo, gurigiisi kama shaqaynayo, culays baa laga saaray. qolkiisa markaad soo gasho waa isku dhex yaacsanya, waa ma nidaamsana, ma xaaqanaa, dharkiisiisti ma ahan, ma habaysnaa, culays baa ka saaray. inuu wax nadaafad ku saabsanba u dhaqaaqo ma qabsanayo, culays baa laga saaray dhinacaas. ama jirkiisa ha noqoto, ama weel la dhaqay ha noqoto, ama dhar la dhaqay oo la habeeye ha noqoto, ama gurigoo mafiiq iyo xaaqin la iska mariya ha noqoto, intaba wax nadaafad ku saabsan ma jeclo, culays baa ka saara. waxyaabaha calaamadaha waxaa kaloo ka mida tii waxaan maraynaa tii 9aad baynu maraynaa. calaamadan aaday muhiim u tahay, weliba qurbaha markii la joogo. waxa weeye calaamadan qofku waxaa ku dhacaysa inuu jeclaado cuslada iyo dadka inuu ka dhex baxa bulshada. qofkii siduu social u ahaa oo ummadda ugu dhex jiray, markii la sixiro oo wax loo qabto wuxuu bilaabayaa waswaas. wuxuu bilaabayaa inuu yidhahdo dad baa isoo fiiriyey, qof baa xagga agtayda maray. marka wuxuu bilaabayaa communitiga ama mujtamacii uu ku dhex jiray, societygii inuu ka dhex baxo. guriga uusan ka soo bixin, asxaabtu ay dhibaan, taleefonka uu qaban waayo, marba xaaladiisu ay ka sii darto haddaan laga gaarin, oo xaaladdu ay sii xumaato maalinta ka dambayso. heer marka dambe waalidiintiis iyo
uu taleefon ka qaban waayo marka koowaad asxaabtuu ka qaban waayayaa marka labaad qaraabada marka u dambaysa walaalaha marka u dambaysa hooyadiis buu ka qaban muxuu diidayaa qofkaasi marka ummaddaas inuu dhex gala ma rabo wuxuu rabaa ummadda inuu ka cararo oo meel gooniyo cidla isku soo xiro waxaa ku dhacaya marka waswaas ah inuu ummadda la noolaado waa calaamad khatiira wey diinteena islaamku waxay qabtaa waxa la yidhahdo jamaaca aljumca waljamaacaad baa la sameeyey qofki inuu jamaacada masaajid kusoo tukado jimcadii la isu tago la isbooqdo qaraabadii la xiriiriyo la isdhex galo waxaasoo dhan marka maxay caawinayaan waxay kaa caawinayaan shayaadiinta inaadan u keliyoobin wada gooni u noqon athar badan ama axaadiista qaarba waxay ku tusinayaan qofka gooni u baxa wuxuu la mid yahay rida ariga ka dhex baxdoo kale ri hadday ariga iyo ka dhex baxdo iyo reerka soo dhurwaagu inuu qaato uma sahlan marka mujtamac haddaad ka dhex baxdo aad ku dhex jirtay maxaa kuu sahlan shayaadiintii marka inay ku ikhtitaafaan baa ku haysa sixirka iyo shaydaankuna waxaa niri iyo shayaadiintuna way isla shaqaystaan marka waxyaabaha muhimka waa maxay waa inaadan community ka dhex bixin masaajidka aad ku xirnaato ayaga aad u soo cararto ayaga aad la joogto mar kasta ood ka fogaato ood isku aragtay calaamadda ah inaad ummaddii ka cararayso aad isku afka ahaydeen isku diinta ahaydeen isku dhaqanka ahaydeen isku dadka ahaydeen haddaad calaamaddaa isku aragtid awalna aad ahayd dabeecaddaada qof soo shala waxaa laga yaaba qof dabeecaddiisu iska gooniya inay tahay laakiin ummadda aan necbayn laakiin dabeecad gooni qof iska socdo iska wixiisa qabsado marka taxawulkaa ku imaanaya isbeddelka change of lifeka ku imaanaya qof calaamad weeye marka shalay saanaad ahayd maanta waad isbeddeshay marka waa calaamad weye calaamadda ugu muhiimsan oo dadka muslimiinta ah marka la sixiro lagu garto waxaa ka mid inay ka infiraadaan ama ka cararaan cibaadada qofkii cibaadadii baa ku yaraanaysa wax kasta oo cibaado ah buu dhibsanayaa hadday qur-aan akhris noqon lahayd waa dhibsanayaa salaad hadday noqon lahayd waa dhibsanayaa wax kastoo khayr ah ila sixirka waxaan iri shaydaankii baa ku xiriira markii lagu sixira marka maxaa yeelay suxaradu waxa ay rabaan inay ku fariisiyaan oo alle subxaanahu watacaala dhinaciisa ay kaa walihaada waxaad arkaysaa dadka sixra mararka qaarkood markii qur-aan iyo lagu akhriyo way cararayaan way dhibsanayaan way waxaysmayaan marka calaamadda ugu muhiimsan ee u dambaysa waa maxay qofka hadduu isku arko inuu cibaadadiisii ku liito wax kasta oo shahawaadka iyo muxaramaadkaana ay u sahlan yihiin wax kastoo xaaraanta ahna uu jeclaysanayo wixii xalaasha ahaa na uu magaranaysaa dhibsanayo cibaadadiisina ay yaraanayso macnaheedu waa maxay waa calaamad muhiina oo ku tusinaysa ninkan in la sixray oo wax ku soo kordheen ayaa ka mid a marka guud ahaan tobankaas aad bay muhiim u yihiin calaamaduhu sidii marka hore aan sheegay tobanka way ka badan yihiin laakiin tobanka ugu muhiimsan waa asaasiyaadka ah baynu sheegnay marka qof kasta waxaa laga rabaa tobanka calaamadood inuu iska eego waxaa laga yaaba mararka qaarkood laba ka mid a inay kugu jirto waxaa laga yaabaa mid ama saddex ka mid a inay kugu jirto tobankaba mararka qaarkood qof ay ku kulmi karto waxyaabaha muhimka waxaa ka mid oon raba inaan anoon tobanka ka baxaynin aan ku xoojiyo qaybta calool xanuunka oo sixirka qofka la cunsiiyey ah gabadhu hadday uur leedahay oo isku aragto carruurta inay ka soo daadanayaan waa sixir la cunsiiyey ama waa sixir tafruuqa caloosheeda ku jira ciyaalkii ay macnaha waxay dhahaan dilan ama cunugii uu ma garanaysa ay soo dhacay marka sixirkaas ama calooshuu ku jira ama waa sixir tafruuq labadaba uu keenaya labadaba way sababi kartaa markaan saa leenahay waxaan ka hadlaynaa caafimaadkii iyo qofkii wuu maray waxaa lagu leeyahay meeshii carruurtu mari lahayd waa okay tuubooyinkii waa okay wax walba waa fiican yihiin haddana cunugu markuu ama 4 bilood ama 5 bilood gaaro waa uu soo dhacaya marka haddii ma dhalayso marka hadday isku aragto calaamadahaas 3-4 jeer hadduu ciyaalka ay ka soo dhacaan dhakhaatiirtii iyo qoladii caafimaadka iyo dhinacaas takhasuskooda waxaana ay yidhaahdaan wax walba oo okay lana garan waayo sababta cunugan keenaysa waa nooc sixir ka mid a sixirkaasi marka waa sixir tafruqa ama waa sixir la cunsiiyey qoftaas dumarka ah marka cilaajka way fududahay asbaabo badan oo la isu cilaajiyaa jira 4 cudur oo sheegnayna mid walba si gooni ah ayaa loo cilaajiyaa calaamadahan marka halka aan ku sheegnay qaar ka mid ah waxay xiriir la leeyihiin
jinka, qaarna waxay xiriir la yeelan karaan isha. mana afarta cudur way isku xiran yihiin. waxaan nidhi waa sixir, waa jin, waa il iyo xasad, way isku xiran yihiin. marka waxay yidhaahdaan qofka waxoo dhan waxaa asalkaa bay dhaheen xasadka. markii lagu xasdo waxaa ka dhalanaysa in lagu elaysto. markii lagu ulaysto waxaa ka dhalanaysa jinkii. markii lagu ilaysto ama markii lagu xasdo oo qofkan uu nimco haysto, ama waa la sixri ama waa la xasdi. markii la xasdana ishii baa ku dhacaysa. waxaa imaanaya marka shaydaankii oo asagana intaasba kasii faa'iidaysanaya oo sixirka dhinaciisa. ilan suxaradu waa shayaadiin, dadka sixir ku shaqaysta shayaadiin wey. marka nasal allah salaama wa tawfiiq. allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ummadda inuu badbaadiyo. qof kastoo muslim ahna waxaa la rabaa waxa aynu sheegayno waa digniin. allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inta xanuunsan inuu caafiyo, inta wax dhibaataynaysana uu toobadda haleeshiiyo, ay ka toobad keenaan dhibaatada iyo waxaan ay shaqada ka dhigteen. kuwa la dhibaateeyey oo hooyooyinka leh oo aabbayaasha leh oo dhallinyarada leh oo gabdhaha leh oo dhibka haysto, ama sixir ha noqoto ama il ha noqoto ama jin ha noqoto ama xasad ha noqotee, ayagana allah subxaana wa tacaala waxaan uga baraynaa shifaa alcaajil, caafimaad degdega inuu siiyo. ilaahay subxaana wa tacaala ay ku xirnaadaan, ilaahay ay tala saartaan, qadarta ay aaminaan, fafiruu ila allah, ilaahay dhinaciisa ay u cararaan. qur-aanka iyo adkaarta iyo kuwa soo arooray alruqiya sharciya ama ruqa sharciya ay inta badan ku dadaalaan. dadka ehlu istilaaxa iyo ehlu khayrka ay la wadaagaan dhibaatada haysata si qur-aan iyo loogu akriyo. marka intaasaan farxaanow yaan oran lahaa. hadday suurtagal tahay oo loo baahdo sidee laysu daaweeyaa mar kalaynu ka hadli doona haddii alla idmo. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. barnaamijkan wuxuu ka duwan yahay barnaamijyadii hore. waxaa lagu sheegayay in qofka calaamadahan halkan oo lagu sheegaya hadduu isku arko in uu sixran yahay. marka sheekha aad iyo aad ayuu mahadsan yahay, iyo ducada oo u duceeyey bulshada nagu xiran iyo bulshada soomaaliyeed meel walba adduunka ay ka joogaan. barnaamijkeeni halkaas ayuu noogu gabagaboobay. aad iyo aad aa u mahadsan tahay. aad baad u mahadsantahay. jazaak allah khayr insha allah.